marka wasaaradda maaliya waxa qaanadaheeda ku qoran lacag fara badan oo bil kasta u soo baxda bil kastana lacagta baahideedu ay taagnayn problemka soo baxa haddii aynu sida ay tahay inaynu u wada shaqayno oo doonayno maxaa dhibta jirta loogu buuxin waayo bilmasalan konton kun waxay ku qoran tahay safarada gudaha bil kastana safar lama galo hadda maanta oo kale madaxweynaha waa la galay qarashina bisheen waa loo jiro laakiin bil kasta safar joogta ah oo jira ma jiro bil kastana kontonka kun waa idin soo xarootaa bishii aan safar la gelin kontonka kun maxaa ku qabataan waxa ku qoran dibadda 20 kun bil kasta dibadda lama aado bil ama laba hadii la aado inta kale oo sanadka bil kasta lacagta waa soo xarootaay baahidee ku buuxisan martigelinta waxa ku qoran 32 kun war bil kasta ma martiba noo joogta haddii bil ay marti joogta ama laba ay joogto sanadka intiisa kale lacagta 32 waa soo xarootaan maxaa ku qabataan 25 kun baa jira iyaduna ku qoran Allahu musta'an waxay ku qoran tahay kharash kale micnihiisana noo macnaysan waa qabnaa waayo waxa noo sheegteen kharash lama filaan noo sheegteen 25 kun oo kharashka kale ah muxuu yahay macnihiisu waa waxaan anu kolba aad ugu wareeray weeye waxay ku qoran tahay alaabta xafiisyada bil kasta ma la gadaa bil kasta ma alaab xafiis baa gadaan lacagtaas inta dhan iyo wax kale oo hadda aan ka gaarsiin karin maadaama aan ka baqayo in waqtigu igu dhaco mudanayaal haddii bisaas aan problemkeedu imaan lacagta xageeysa ku baxda waayo lacagta hadda aan xisaabinaya waa lacag $200 kun oo dollar bishii martii inoo timaada garanay bishii safar la gala garanay bishii aan meel la aadin lacagtiina ay soo xaroonayso bil kasta baahida abni oo ka hadlaysaan iyo baahiyahoo dhan lacagtaas ka badan wali caado waxba ka soo haraya marka idinkoo mutaagneyn waxa aad ku bixisaan kharashka lama filaanka kaliya baa wuxuu yahay kharashka lama filaanka wuxuu yahay 41517 waxaan qabaa bil kasta inta markay idin soo xarooto baahi kasta isaga dabooli kara waxa kaloo jira kharash kale noo macnaaya wuxuu yahay anagu ma garan karno kharash kale aad iyo aad annagu xitaa ma ahi anu hadda xasan ahaan ma ahi nin aad badan u ah bahalkii ilaa ma ahi diyaar ba ama sidii aan faagada u sheegayey waxaan bilaabaynaa waa wax cusub markaan gaarno bisha 9aadna inta ka horeysana maalin walba ama bil walba ay la wadaagaynaa waxa miisaaniyada ku sii yaala markaan bisha 9aad gaarnana go'aan aan ka midaysanahay baan gaaraynaa qodobkaas u diinaya Cabdicasiis madaxyoob uu sheegay lacago ku jira oo wuxuu yiri lacagahaasi bil walba lama helo ma baxaani seen qorani anu wada intaan joogay waxaan garanayaa operationada aan galay lama filaanka laga bixiyo lama filaanka Cabdicasiis wuxuu magaciis mudug kaliya waxaan ku bixiyay $50,000 sanaag iyo barina sanaagna waxaan ku bixiyay $180,000 tanna waxaan ku bixinay ilaa $200,000 ku dhawaad $100,000 camal kala bal lacagta kaliya isku dar madaxweynaha dhaqaaqa hadda uu dhaqaaqay iyo $54,000 wax isla ma laakiin waa xisaab la rabo meesha lagu bixiyo in la helo waa ku raacsanahay markay soo baxdo lacagtaasi meesha ay ku baxdo xisaabta laga arkayaa waana idin keenaynaa October baa keenaya xisaabta waana wax loo baahan yahay wasaaradda go'aan u qaadatay ma kharash la yaqaan specific ah ku baxay ma laba filaanadaas ay gashay ilaa marba xitaa mushaharooyinkeedu baleen waa weyn hadda markii dagaalada ka socdeen iyo xagga socdeen mushaharooyinkeedu waxay galeen difaaci galeen marba taas imaanaysa odayaal weligood soo joogay laakiin oo waxa kan aniga iga badiya nimankiina su'aalaha aniga weydiinaya ninka aad su'aalaha weydiinaysaan barnaamijkan iyo maaliyadda waana uga qodob badantiin waana ka ogtihiin qodobka marka lacagahaas waxaan aaminsanahay in xisaab xirka ka arki doontaan haddana kharashadu sida ay u baxeen sidaas weeye martigelin ha noqoto lama filaan ha noqoto kharash kale waxa miisaanada ay ugu qoran tahay odayaasha weydiinaya waxyaabaha aan laftigeedu inaan barto ay tahay weeye kharash kale waxa ku qoran waxa ka jawaabaya nimankaana ka jawaabaya laga soo bilaabo nalkii biyaha lagu geeyay ilaa kharashyada kale ilaa dayactirada gaadiidka iyo hantida kale waa madaxyo
madaxyadaas waxaa la rabaa marka in la fahmo qolo kasta adeegeeda bay u jajabsan yihiin martigelin qolo aan lahayn ma jirto golaha wakiiladu hadda waxay leeyihiin martigelin 4,000 baa bishii ugu jirta oo martigelin wasaaradda maaliyadda waxay leedahay 327 adeega iyo 141 mushaar iyo gunooyin marka madaxyadaas waxay ka kooban yihiin nalkii biyaha ilaa iyo kharashyada kale marka sidaa la ogaado wasiirkuna waa inii sheegay 327 weeye adeega wasaaradda maaliyaddu ayadaa wuxuu ka kooban yahay safarro gudo dibad martigelin alaabtii adeega kharashyada kale nalkii biyaha iyo isgaarsiinta sida marka kharashyada kale ee wasaaradda maaliyadda weeye kharashyada 20,000 ku qoran tahay maaha kharash ku saabsan wax kale sidaa ula socda marka 320ka waxa weeye madaxaas weeye 327 adeega wasaaradda maaliyadda weeye faahfaahinta in sidaa loo fahmo haddii tusaale ahaan la soo saaro wasaaradda caafimaad kharashyo kale leedahay haddii la soo saaro wasaaradda arrimaha gudaha waxay leedahay sidoo kale kharashyo kale baarlamaanku waa leeyahay madaxtooyadu waa leedahay marka buuggeena standardka oo GFS 2001 oo ku salaysan yahay miisaaniyadeenu ku salaysan tahay baa wuxuu ka samaysan yahay standard isku mid ah oo isku uniform oo leh madaxyo isku mid ah kharashyada dawladdu waa sidaa marka hal la fahmo sidaa loo fahmo martigelinta wasaaradda maaliyaddu waa la mid martigelinta wasaaradda caafimaadka sidaasaan ku soo